Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub. Caawa waxaan qaadanaynaa waa maxay daawada sokorowga. Sokorowga waa xaalad ka samaysan ama saameyn weyn ku yeelanayso caafimaadka qofka oo dhan. Sidaas daraaddeed waa in uu qofku muujiyaa taxaddar weyn si uu u helo caafimaad una iskaga yareeyo caqabadaha caafimaad darre ee ka dhasha sokorowga. Qodobada ugu muhiimsan ee qofka la nool yahay sokorowga in uu ku raaco ama uu ku dhaco waxaa ka mid ah: waa in mar walba sokorta dhiigga ahaato mid u dhow tiradii caadiga ahayd. Waa in uu qofku isticmaalo qorshe cunteed loogu talagalay dadka la nool sokorowga. Waa in uu ka taxadaro cuntooyinka aan ku habboonayn dadka la nool sokorowga. Waa in uu ka feejignaadaa heerka dhiiggiisa ama kolestaroolka waa in uu la socdaa cadaadiska dhiigga ee blood pressure ama BPga loo yaqaano. Waa in uu qofku ku sameeyo jirdhis ama jimicsi waa in uu miisaanka ka dhigaa meeshii loogu talagalay BMI kana hortago cayilka. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeennii ku saabsanay daawooyinka sokorowga loo isticmaalo ama sokorowga sida loo yareeyo. Wabilaahi towfiiq. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.